waxaa jira skills badan oo qaabka online lacag uga sameyn karto ama aad uga sameyn karto investment ama aad kala bedelin karto ama aad exchange uga sameyn karto ayaa ka buuxa so marka iminka qaybtan waxa weeyaan waa theaterkayga ama qaybta USDT-ga kaasoo everyday ma garanaysaay ay receive iyo transfer iyo receive ay meeshan kasoo galaan shal bakrin so marka halkaas u jeedo wax weeyaan dhamaan waa history-gayga transfer-kayga qaybta waliba USDT-ga ma qaybta TRX markaas so marka shal bakrin de wax waqti oo badan inagama qaadan wax saaw badan inagama qaadan oo kale ma garanaysaay oo kuwan dhamaantood halka ma kasoo galeen markaan shal bakrin iyagoo marna yar marna badan oo adduunkaas ka saasa so ma garan waqtigan ma garanaysaa ama fursaduhuna markasta waa noocaas marna iyagoo yar kusoo galayaan marna iyagoo badan kusoo galayaan marka shal bakrin website-kan aad aragto website aad u faa'iido badan waxa ku qoran BB oil mall ba ku qoran marka shal bakrin waxaan furanay grade 2 ama FIB 2 kaasoo aan everyday order-ka commission-kiisu yahay $18 withdraw sameynaysa everyday $15 USDT ayaa sameynaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تعطى لمن تكون السلام فضلك تمكن تسوي سبسكرايب صار سكر لنا شال بكريم ما تحكي رضا نوصل لي قانو BB مول FIB سو مرة شال بكريم وبسيط كان مرة اللي صور عذركم بوكين دان فيرستلي انتم قلنا ساي وافيلبل ما اوبن كي يعني كفايه سنه مرة هل كان ايميل باكشن صار كان باسورد هل كان سكيورتي باسورد لو يقانو ودو تولي نمبر يحنا عاسد ولا نمبر ميل سكشن سا ان فات ورك مرة لينك صور عاديه توسوليسا kadib sign in baad leedahay sign marka tilaadid akoonkaaga gudaha soo galaysaa oo login baad leedahay markii intaas sameeyso aad gudaha soo gasho kaliya waxa sameynaysaa inaad sign in tiraado oo aad login aad tiraado gudaha ku soo galo markaas halkan buu markaa wuxuu ku sharax doonaa dhamaan registration link halkan baad ka helaysaa contact surface hadii wax ka khaldamaan oo kale ama doonaysid inaad ku lahaad la xidho baad ka helaysaa soo marka firstly register safe marka si ingiliis waxaad helaysaa $100 ama $100 minimum recharge inta ugu yar macnaha wax ku shuban kartaa waxa weeyaan $20 USDT clear minimum withdrawal inta ugu yar la bixi kartaa waxa weeyaan $2 USD single ma garanaysaa withdrawal kiis waa one day ama one time weeyaan hal mar ma garanaysaa kala baxaysaa macnaha maalinkii weeyaan sidoo kale level price waxa weeyaan waa kan daily wax ka helaysaa USDT one price kiis waxa weeyaan $110 USDT if day wax ka helaysaa halkaas okay marka the secondary price waxa weeyaan $180 daily wax ka helaysaa $8 USDT waad ka helaysaa shal bakrim oo price waa kaas marka maanta waxaan gelinaa kan ay ku qoran tahay principal-ka intana maamulaysa $8 akoonkeena soo shubana kadibna $18 USDT ayaan ifdhay qaadan doonaa level price-kana waxa way $450 ay ku shubanaysaa ifdhay wax qaadanaysa $350 USDT daily commission-kiisa waxa weeyaan $8 USD so marka shal bakrim halkan buu keeni doonaa marka koobaad kadib wax walba garanaysan waa 00 so marka first waxaan doonaynaa furno qaybtan kadib waxaan laabanaa meesha ku qoran tahay deposit inta taabana deposit markaan taabano koob address ma laan address ma koob garanna marka soo koob address walba soo galay kadib meesha ku qoran tahay sindi ma taabanaya taytarkaygi tin marka tarkan baas ku qoran taabanaya halkan aan shaqeyn bakrim $8 every day waxaan kala baxayaa macnaha oo laysiinaya commission-ka $8 marka lagu jirno waxa weeyaan waxaan ku jirnaa marka ama week aan ku dhufano $8 lagu dhuftay 7 soo jeedo waxa weeyaan $160 USDT $160 hadii ka jirno marka waa $8 ka soo dhiganay waxa inaga inoo faa'iido markaas $48 USDT marka laga reebo $8 aan ku shubtay waxa ka faa'iido oo ku jira meesha $48 USDT ama $48 ay ku jira soo marka $160 kaas aan doonaa shal bakrim inaanu ifdhay meesha kala baxno so marka continue la yahay confirm as ilaa marka si toos ah bixid insha Allah kareem marka soo recharge gareyso meesha ku qoran recharge complete baa taabanaysaa recharge complete marka taabato waa ka soo baxaysa markaas kadib halkan waxa noqon doonta marka 100 yahay marka koobaad 100 ay lagu bilaabay $8 ay noqotay halkan dadka agnu wuxuu sheegay deposit quantity intii aad soo shubatay inaad tahay $8 USDT ama ay total balance inuu yahay $180 so marka waxa la furay qaybtan baa la furay grade-kan baa la furay grade waxa kale doonaa daily $18 baan kale doonaa kadib waan taabanayaa kadib marka taabto process ma saar doonaa halka ku qoran tahay good finish baan leeyahay clear oo shaqo kale gan baan $8 u qaato kadib good finish baan taabtay si toos ay ugu baxay markaas halkan bay marna marka $180 meesha uu isbedelay wax ku kordhay $8 ku kordhay $160 noqotay markii aad doonayso inaad lacagtaada dibadda la baxdo oo aad geysato account-kaaga
waxaad taas meesha ku qoran tahay withdrawal baa taabanaysaa oo halkan ku qoran withdrawal marka taabatid kadib halkan waxay ku dareemi kaas just know meesha waxay u diyaariyay $8 halkan waxaan gelin doonaa markaas addresskayga gelin doonaa theaterka halkan waxaan gelin doonaa macnaha $18 gelinaya halkan waxaan gelin doonaa marka passwordkayga marka soo jeedo halkan waxay ku diyaaraa $18 oo qaybta balance-ga total balance weeyaan halkan waxaan geliyay macnaha addresskayga baan geliyay kaas ama oo numberkayga oo lagu doono lacagta halkan waxaan geliyay passwordkayga baan geliyay halkan marka waxaan gelin doonaa 18 ayaan gelin doonaa 18 markaan geliyo kaliya waxiga xigta wixii walba soo geliyay numberkayga waxiga soo geliyay kadib confirm baan leeyahay confirm markii aan dhaho si toos ah way ugu baxdaa marka inshallah cream withdrawal success baa la soo qoray meeshii waxa noqotay nal si toos ah ayaan garanayay ay u baxday lacagtaas minutes yar kadibna ugu soo gali doontaa adoon wax badan ba sugnaa ma saacada suuliga soo gali doontaa ujeedada marka message waa kan uu soo dhacay wuxuu yiri $18 ayaad ka heshay received from address kaas ka heshay marka inshallah cream ko adin agna qayb transferkiin eeg doonaa transferkii waxa ku jira $2 baa ku jira kadib refresh maan leeyahay refresh markaan dhaho waxay noqotay inay doona inshallah cream waxaan noqotay 20 USDT marka $18 waxa kan soo galay $18 si toos soo galay markii $2 meesha ku jira login waxaan noqotay 20 USDT